السلام عليكم صاحبي الكسو دواada mowduuc kale maanta waxaan kaga hadli doonaa mowduuceena 10 shirkadood ee dunida ugu qaalisan dhanka magaca kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddii aadan kusoo biirin fadlan waxaad riixdaa subscribe kadibna waxaad riixdaa gambaleelka si aad ugu soo biirtay channelkeena Apple waa shirkad caalami ah oo Mareykanka laga leeyahay xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa California waa shirkad qaabaysa horumarisa iibisana electronicska iyo softwareada computerka waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah mobilka caqilka ah ee iPhone, tabletka iPad iyo TV-da Apple. sidoo kale waxay soo saartaa saacadda caqilka ah ee Apple Smartwatch. shirkadda sidoo kale waxaa soo saartaa software ay ka mid yihiin macOS oo ku shaqeeya kombiyuutarada Apple iyo iOS oo ku shaqeeya iPhone. shirkadda Apple waxaa aasaasay 3 nin oo kala ah Steve Jobs, Steve Wozniak iyo Ronald Wayne April sanadka markuu ahaa 1976 isla sanadkii xiga ayay gaartay guulo muhiim ah maadaama ay shaqaaleysay shaqaalo aad u fara badan. Apple waxay soo shacbaaday 1980 kadib markii ay soo xareysay dhaqaale ku filan. hadda shirkadda Apple waa shirkadda ugu weyn dunida xagga magaca iyo qiimaha waxayna qiimaheedu gaaray 182.8 bilyan ee dollar. waxaa faa'iido ahaan sanadkii u soo gala 48.5 bilyan ee dollar. Google waa shirkad caalami ah oo Mareykanka ku taala taasoo ku caanbaxday howlaha la xiriira internetka. Google waxa ay qabato waxaa ka mid ah xayeysiiska online-ka ah, barta raadinta iyo cloud computing oo ah in daruuraha wax lagu keediyo. Google waxaa la aasaasay 1998 waxaana aasaasay Larry Page iyo Sergey Brin iyagoo ahaa arday dhigata jaamacadda Stanford University iyagoo baranayay heerka saddexaad ee jaamacadda ee PhD. markii hore waxay aasaaseen si gaar ah 4 Sebtembar 1998 balse waxay soo shaabaxday August 19 2004 markaas oo ay u guurtay xarunteeda hadda ee ku taala California. Google waa meesha loogu raadiska badan yahay xogta internetka. Google hadda waxa uu shaqeeya 85,050 shaqaale. waxaa hoos yimaada shirkado waaweyn oo caan ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Gmail, YouTube, Chrome iyo Google Map. hadda Google waa shirkadda labaad ee ugu qaalisan dhanka magaca iyo hantida taasoo qiimaheedu gaaray 132.1 bilyan ee dollar. sanadkii waxaa faa'iido ahaan u soo xareysaa 31.15 bilyan ee dollarka Mareykanka ah. Microsoft waa shirkad caalami ah oo fadhigeedu yahay caasimadda Mareykanka ee Washington DC. shirkadda Microsoft waxay horumarisaa soo saartaa iibisa softwareada computerka ee naqaana Windows iyo waliba electronicska. Microsoft waxa si fiican loogu yaqaanaa soo saaridda softwareada waana shirkadda ugu weyn ee soo saarta softwareka computerka ee adduunka oo dhan. softwareada ay soo saarto waxaa ka mid ah Windows iyo Office. 43 sano ka hor waxaa lagu aasaasay New Mexico ee isla Mareykanka. waxaana aasaasay shirkadda Microsoft Bill Gates iyo Paul Allen. shirkadda Microsoft waxa ay u shaqeeyaa 131,300 oo shaqaale. hadda shirkadda Microsoft waa shirkadda saddexaad ee ugu qaalisan dhanka magaca waxaana qiimaheedu yahay 104.9 bilyan ee dollar. sanadkii waxaa faa'iido ahaan u helaan 30.67 bilyan ee dollar. Facebook waa barta bulsho ee ugu caansan uguna weyn dunida oo dhan waxaana xarunteeda weyn ay ku taalaa waddanka Mareykanka California. barta Facebook waxaa la bilaabay isticmaalkeeda 4 February 2004 waxaana aasaasay arday dhiganaysa jaamacadda Harvard
waxayna kala ahaayeen Mark Zuckerberg, Eduardo Safarin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz iyo Chris Hutchins. balse hadda waxaa milkiyadeeda leh Mark Zuckerberg. Facebook waxaa ka shaqeeya shaqaalo gaaraya 30,275 shaqaale, waxaana hoostaga shirkado waaweyn oo ka mid tahay Instagram iyo WhatsApp. waxaa bishii soo gala oo isticmaala 2.2 bilyan oo qof, waana 3 meelood hal meel dunida dhan dadka ku nool. waa shirkadda ugu badan ee Soomaalida isticmaasho markay isticmaalayaan baraha bulshada. shirkadda Facebook hadda waa shirkadda afraad ee ugu caansan ama ugu qaalisan dhanka magaca, waxaana ay gaartay 94.8 bilyan oo dollar. haddii aad doonayso inay iibsato shirkadda Facebook, waa inaad bixisaa 94.8 bilyan oo dollar. faa'iido ahaan shirkaddan waxaa u soo gala 15.93 bilyan oo dollarka Mareykanka. Amazon waa shirkad Mareykan ah oo wax ku iibisa qaab online ah. fadhigeeduna waa Washington, caasimadda Mareykanka. shirkadda Amazon waxaa la aasaasay 25 sano ka hor oo ku beegan 5 July 1994, waxaana aasaasay nin lagu magacaabo Jeff Bezos. Amazon waa shirkadda labaad ee ugu weyn xagga iibka online-ka ah, waxaa ka shaqeeya 566,000 oo shaqaale. hadda shirkadda Amazon waa shirkadda shanaad ee ugu qaalisan xagga magaca, waxayna gaaraysaa qiimaheeda 70 milyan oo dollar. sanadkii waxaa faa'iido ahaan u soo gala 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Coca-Cola waa shirkad ku taala waddanka Mareykanka. waxa ay soo saartaa cabitaanada acidka ama aashitada leh. shirkadda waxaa si fiican loogu yaqaanaa cabitaankeeda caanka ah ee Coca-Cola, kaas oo la dahqaaday 1886, waxaana dahqaaday nin farmashista ah oo la oran jiray John Steve. kadib markii la gaaray 1894 ayaa waxaa magaca iyo cabitaankaba laga iibiyey Asa Griggs, markaas uu aasaasay shirkadda Coca-Cola oo fadhigeedu yahay Atlanta, waddanka Mareykanka. Coca-Cola waxa ay ka howlgashaa in ka badan 200 oo waddan. waxaa u shaqeeya shaqaalo gaaraya ilaa 70,000 oo shaqaale ah, waxayna soo saartaa noocyo badan oo cabitaano ah. hadda Coca-Cola waa kaalinta 6aad marka la eego dhanka shirkadaha ugu qaalisan magacyadooda, waxaana qiimaheedu gaaray 57.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, waxaana sanadkii faa'iido ahaan u soo gala 1.28 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. shirkadda Samsung waa shirkad laga leeyahay waddanka South Korea. waxa ay caan ku tahay inay soo saarto mobilada iyo qalabka electronicska. fadhigeedu waa magaalada Samsung ee waddanka South Korea. 80 sano ka hor 1 March 1938 magaalada Daegu ee Korea ayaa lagu aasaasay, waxaana aasaasay nin la oran jiray Gerardo Lee Byung-chul. shirkadda xilliyadeedii hore waxay ahayd shirkad ganacsi oo wax walba soo saari jirtay, sida qalabka dhismaha, kiimikada, dawada iyo electronicska. shirkadda Samsung waa shirkadda ugu qaalisan dhan kasta marka loo eego waddanka South Korea, waana shirkadda ay u shaqeeyaan shaqaale gaaraya 489,000 oo shaqaale. hadda shirkadda Samsung waa shirkadda 7aad ee ugu qaalisan dhanka magaca dunida oo dhan, qiimaheeduna wuxuu gaaray 47.6 bilyan oo dollar. Disney fadhigeedu waxa ay ku yaalaa Mareykanka, waxa ay soo saartaa filimada iyo kartuunka. waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta filimada iyo warbaahinta dunida oo dhan. 95 sano ka hor 16 Oktoobar 1923 ayaa la aasaasay, waxaana aasaasay laba walaalo oo la oran jiray Roy Disney iyo waliba Walt Disney, markaas oo loo bixiyey Disney Brothers Cartoon Studio. ugu dambeyn shirkadda waxaa loo bedelay magaca Walt Disney Company. sanadaheer kadib ayay shirkaddan ay gaartay horumar aad u weyn, isla markiiba ay hoggaanka uga qabatay shirkadaha ugu sarreeya kartuunka ee Mareykanka. shirkaddan hadda shaqaale ahaan waxaa ugu shaqeeya 199,000 oo shaqaale. shirkadda Disney waa shirkadda 8aad
ay shirkadaha ugu qaalisan dhanka magaca, taasoo qiimaheedu gaaray 47.5 bilyan ee dollar. waxaa faa'iido ahaan shirkaddan usoo gala ku dhowaad 9 bilyan ee dollarka Mareykanka. Toyota waxaan u maleynayaa in shirkaddan aad u wada taqaanaan. waa shirkadda soo saarta gawaarida, fadhigeedu waa magaalada Aichi ee waddanka Japan. waa shirkadda labaad ee ugu soo saarka badan dhanka gawaarida adduunka oo dhan. laga soo bilaabo 2012 waxay sanad walba sameynaysay 10 milyan oo gawaari ah. Agoosto 28 1937 81 sano ka hor ayaa la aasaasay shirkadda Toyota, waxaana aasaasay Katuro Toyoda. sidoo kale shirkadda waxay soo saartaa waxyaabo kale oo aan ahayn gawaarida, waxaana ka mid ah robotska iyo qalabka beeraha. shirkadda ayaa wixii adeegeeda gaaray adduunka oo dhan. 27 sano kadib waxay xafiiskeeda ka furatay magaalada Muqdisho. tirada shaqaalaheedu waxay gaarayaan 36,000 oo shaqaale. shirkadda Toyota waa shirkadda sagaalaad ee ugu qaalisan dhanka magaca, waxayna qiimaheedu gaarayaa 44.7 bilyan ee dollar. AT&T waa shirkad caalami ah, waxa ay ku caanbaxday dhanka telecommunication-ka. fadhigeedu waa magaalada Texas ee waddanka Mareykanka. waa shirkadda ugu weyn dunida dhanka telecommunication-ka, waana shirkadda labaad ee ugu weyn Mareykanka marka laga eego dhanka bixinta adeegga mobilada. 1877 ayaa la aasaasay, waxaana aasaasay Alexander Graham Bell oo ah ninka soo iqtiraacay taleefanada ay maanta ka hadalno. shirkaddan waxay kharash garaysaa ama taageertaa siyaasadaha waddanka Mareykanka, waxayna kaalinta 15aad kaga jirtaa shirkadaha taageera waddanka Mareykanka. shirkaddan ayaa waxaa u shaqeeya shaqaale aad u fara badan oo gaaraya 273,000 oo shaqaale, waxaana hoos yimaada shirkado waaweyn, waxaana ka mid ah MIP Network iyo App Nexus. shirkadda AT&T waxay kaalinta 10aad uga jirtaa shirkadaha ugu qaalisan dunida dhanka magaca, waxayna qiimaheedu gaaray 41.9 bilyan ee dollar. sanadkii waxaa faa'iido ahaan usoo gala 29.450 bilyan ee dollar. haddii aad ku cusub tahay channelka, riix subscribe kadibna riix gambaleelka si aad u hesho warbixino xiiso leh.